saxaafadeedu soo saaray ururka mustambeed ee abwaaniinta Somaliland ragga halkan fadhiya ee dhinacayga fadhiya kulluda wada garanaysaane ayaa ururkan asaasayaashooda haddaba saxaafadeedka ku ekaado inta kale iyaga ka hadli doonee waxa war saxaafadeedkan ku bilaabmaya wax cusub maaha ee deeqaha Allah inagu manaystay ayay ka mid tahay haddaynu nahay Somaliland odayaal samatalisa iyo bulsho u dhago nugul oo qaadata taladooda bulsho meel ku wada nool oo taalana waxa laga fahmi karaa oo halbeeg u noqon kara biseelkeeda ilbaxnimo iyo aqooneed halka ay kula tacaalaan dabiibka ama furdaaminta xaaladaha kolba soo food saara Somaliland dhibaatooyin badan oo qalabsan oo la soo dirsay waxa ay ku dabiibtay oo ay kaga bogsatay ilaah baa mahad leh daawada kor ku xusan ee ah talo odayaal wada tashi iyo isu tanaasul arrinta doorashada madaxweynaha Somaliland iyo khilaafkii ka yimi xilligii la qaban lahaa oo ku soo beegmay xilli abaar ah ay ka jiraan wadanka kama duwana dhibaatooyinkaasi bulshooyinka la soo dirsa annagoo halkaa ka ambaqaadayna kala duwanayna waxaanu ku dhawaaqnay 10 bishii koowaad 2017 kulan saxaafadeed annagoo oo kaga hadlayna arrimahaasi kuna marti qaadnay in la isugu yimaado golo lagaga wada tashado arrintaasi si aanu uga maydha dhalino arrinkaasi waxa aanu la kulannay guddiga doorashooyinka qaranka 12 bishii koowaad 2017 15 bishii koowaad 2017 waxaanu isugu keennay saddexda musharrax ee jagada madaxtinimada Somaliland xarunta dhaqanka ee Hargeysa halkaasi oo la isla qaatay in wada hadal iyo isafgarad lagu dhameeyo goorta doorashada la qaban doono iyo in laga waantoobo hadallada xanafta leh ee la isu marinayo warbaahinta 17 bishii koowaad 2017 waxaanu la kulannay gudoomiye xigeenka golaha guurtida oo isku xog wareysanay halka looga dhaqaaqayo arrinkan 19 bishii koowaad 2017 waxaanu la kulannay wasiirka qorsheynta qaranka oo aan isku xog wareysanay halka looga dhaqaaqayo arrinkan sidoo kale waxa aanu la kulannay wasiirka dhaqanka iyo dalxiiska waxaanu la kulannay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo aan isku xog wareysanay uguna hambalyeynay go'aankii wada tashiga qaran ee lagu gaadhay ugu dambeyn waxa aanu la kulannay gudoomiyaha guurtida Somaliland oo aanu kala dardaaranay in golahani ku raaco talada qaran ee la isku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka isla gudoomiyaha waxa aanu la kulannay 5 bishii saddexaad 2017 oo aan isla arrintaasi isla soo qaadnay waxaanu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxda sharafta leh ee na qaabishay niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen ixtiraamka iyo dhageysiga iyo waliba qadarinta ayna siiyeen talooyinka aan la soconayna ay nala wadaageen waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa in isdirkii aanu isdiray inuu furo u noqdo in talo qaran iyo isu tanaasul lagu gaaro arrintii aanu ka hadlaynay ahayd waqtigii doorashada ay dhici lahayd oo maanta natiijo wanaagsan laga joogo ugu dambeyntiina waxaanu soo jeedinaynaa baaqyadan waxaanu ilaahay ka baryaynaa in abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dabiiciga ah uu inaga dulqaado oo inaga qaboojiyo roob caafimaad lana ina siiyo dadkii ku caydhoobayna abaartaasi uu ilaahay iyana isaga gargaar leh gargaar u fidiyo waxaanu xusuusinaynaa ummadda in culayskii uu sicir bararku ku hayo bulshada weli ay la taala dhacayso oo dhibaato ka haysato waxaanaanu leenahay cid kastoo arrintaa ku shuqul lihii inay dabiib u helaan arrintaa ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inuu faraj naga siiyo waxaanu xusuusinaynaa in abaartii dib loogu dhigay doorashada darteed ee dalkeena ka taagnayd ay weli halkeedii ka sii jirto way waliba sii xumaatay oo intii hore ku xumaatay sidaa daraaddeedna waxaanu kula dardaarmaynaa ummadda Somaliland gudo iyo dibadba meel kastoo ay joogaanba dowladda iyo shicibba in cid waliba in ay arrintaa ogaato oo ay wixii ay ka qaban karto ee gargaara ay la joogto ay la soo gaadho waxaanu kula dardaarmaynaa in laga hawlgalo sidii maalintaa la go'aamiyey ay u qabsoomi lahayd doorashadu ilaahayna waxaanu ka baryaynaa in doorashadaasi ay noqoto mid sidii kuwii hore Somaliland laga bartay si wanaagsan oo qabo oo nabada ku dhamaata ugu dambeyntii ka tagi maynee maantaanu qabanay shirka waa 8 March waxa dabaal degaya
dumarka caalamkoo dhan kuweennuna waa ka mida waxaan leenahay idilkiinba hambalyo iyo sanadkan kiisa kale ku gaadhaan bashbash iyo barwaaqo waxaanu halkan anaba ku hadlaya afka abwaaninta halkan fadhiya uga ducaynaya guud ahaanba fanaaniinta iyo bahda saxaafadda ciddii xanuunsanaysa ee jeeftaa sariir saaran in ilaahay caafimaad siiyo inta caafimaad qabtana ilaahay caafimaadka u kordhiyo waa runtii xasanganayey iyo ummaddeenna iyo inkastoo islaamo xanuunsanaysaba in ilaahay caafimaad siiyo waxaanu leenahay somalilan tanaasul iyo tala wanaagsan oo odayaal ay ku meel martay maantana ay ku guulaysan doontaan bismillaahi raxmaani raxiim xarunta dhaqanka hargeysa waxaa sharaf u ahayd inay martigeliso golaha abwaanada mustambeed ee somaliland oo muddo fara badanba kusoo mashquulsanaa iminka sidii xilkiisa raaya mas-uulnimo iyagoo isdireen in ay soo gebagabeeyaan oo qaybtii koowaad ee hawsha ay qabanayeen maanta bal inooga sheegaan wixii halkay ku gebagabeeyeen halkay martay sababtii keentay inay dhaqaaqaan runtiina somaliland waxa ay kaga duwantay ummaddaynteeda kale waxa ay ku soo badbaaday waxa ay ku soo jirtay waxay ahayd ismaqalka isfahanka wadatashiga kala dambeynta waxaanay tani caddaysay mar labaad halka ay abwaaniinta qaranku ka taagan yihiin ummadda somalilan tiibaa aynu maanta ka wada hadlaynaa xarunta dhaqanka hargeysa mar labaad way u mahad celinaysaa abwaanada laakiin waxay caddaynaysaa oo ay maaragtay aad ugu faraxsan tahay inay abwaanadu heleen inay samaystaan codkoodii gaadhsiiyaan ummadda waxay ahayd wax loo baahan yahay mar horaa lagu kaftamo la yidhi waa markii koowaad abwaanadu ay ka tala bixiyaan arrimaha qaarkood alxamdulillahi rabbil caalamiin waxaanay noqotay in guul laga gaadhay taladii ay iyagu astireen tiibaynu maanta halkan wada joognaa tiibay halkan marti ugu tihiin maaha xarunta dhaqanka hargeysa ee abwaaniinta ay idin marti ugu tihiin iyagaa idin sheegi doona wixii ay idinku yeedheen iyagaa idinkala hadli doonaa halkay u socdaan aniguna waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba rabnaa inaanu ku celino kaalinta ay kaga jiraan abwaaniinta somaliland inay weligeedba ahayd mid aad iyo aad u qiimo badan tiina ay maanta xilkoodii iyagoo istiray ay guteen marka waxaan u gudbinayaa u dhiibayaa mikrofoonka maxamed xasan cali weji oo ahaa dee afhayeenka idiin sheegi doona war-saxaafeedkana ay noogu yeedheen isagaa inoo akhriyi doona adno annaga haddaanu nahay ururka mustambeed ee abwaaniinta ilaa maalintii aanu bilownay ilaa maanta na qabanqaabinaya isukaayo keena noo sameeya karti badan ayaanu leenahay hambalyo weeye jaamac muuse jaamac waxaanu leenahay meelaha waad mahadsan tahay wuuna dhiirigeliyey waxaan u baahanay annagu abwaanina cidna dhiirigelisa cidna qalbi jebisa uma baahnin sidaasaanu leenahay waa xarunta dhaqanka ee hargeysa oo uu agaasimo ka yahay ama maamule jaamac muuse waa u mahad celinaynaa waxaa kalaan xusi lahaa raggii inaanu halkan ku dhammayne rag door inaga maqan yahay oo qaarkood xanuunsadeen oo qaarkood boora ma jiraan sida Bashiir Xadi iyo ninkii Maxamed Dheere iyo Aadan Tarabi iyo niman kale oo rag badan baa naga maqan ninkii loo jiray dheeg la oran jiray waa ka cudur daaran inaan halkan ku dhamayn waxa kale oo iyagana aanu mahad celinaynaa cidii abaabushay abwaankii xanuunsanayay afguriye oo boorama laga qaaday oo dhakhtar hindi ah loo diray waxa kale oo jira cid kasta oo ka hawl gashay waa ku hambalyeynayna waxa kale oo jira rag kale oo xanuunsanayo basbaas leh oo ninkii Xasan Qawdhan oo dabada isna loo qaaday leh iyagana waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu Ilaahay caafiyo idinkuna waa mahadsantahay saxaafadda guud ahaan intii aan la hawl galaysan waa noqotay su'aalan idinku noqdo anigu in badan ba soo sheegteen hawlahan ku jirteen iyo sidii loo keeni lahaa xal looga gaari lahaa ujeedada ugu weyn ee doorashada dib loogu dhigana waxa weeyaan arrinta abaaraha arrintaas wala wada war-saxaafadeedkiina ku soo hadal qaadeen haddana dadku waxay u taagayaan sidan looga mashquulay looga jeestay baa looga jeedsanaanaya mise waxaa jira nidaam kale oo yacni baahidii oo weli taagan in doorasho dib loo dhigo ujeedaduna inay ahayd horta abaarta ilaahay unbaa qaadi kara dawlad iyo shacib iyo cid kastoo isu tagtaa waxba kama tari karto inaynu ilaahay barnaa unbaa muhiima laakiin dee xaaladan unbaa doorashada la yidhi ma waafaqsanaa oo dib loogu dhigay waxaana filayaa inaanay xilliga lagu beegay ilaahay waxaanu ka baryaynaa inaanay abaari aanay jirin laakiin lagama mashquulina dadka waxaanu ku baraarujinaa baaqaygu imika wajahan yahay in abaartii la xasuusnaado dee lamay kicine dee dadkii aanu dib u xasuusino inaanu marba halkana kaga hadhi mayne marar kalena waanu qaban doonaa shirar kale oo aanu abaarta iyo sixir bararkaba aanu kaga hadli doono wanaagsan bay u dhamaatay xilliga lagu beegay
وحل أنا عبارة هين ده دين الرجعين مركز صدق ده بلاد جوجل دمادان صدق ده حاجة دمادان صدق ده داير توا بشيور ريسي أدر أما برتن كذي كل حل عبارة كم بيجنا واي لا وإلهي نو واحد نكبر إنه عبارته نجى سوق بوتشيو إلهي وحما كمان كرهاد وحنا قبو إلهي عبارته نجى سوق بوتش إلهي يو دد كان نهره وياشين يهو كان إلهي عرك ما الخير قبا أو مسكورابة أو من قرقارة إلهي بيضدر لهين أو ضرب لهين أو دوفان لهين أو دادو حقاد لهين وارهم ضانتين نهره إمكا باشن الغياب تذكير الدين تبع داخل أيام الله يهيب غربي قايت نو بحرو بلتيا كلام قبلنا بلاتي هالكلام يرجع ورابي واي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته